السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فهد عبد القادر محمد إيله oo ka soo hadlaya maanta magaalada balad xaawo oo dagaal xun nagu soo gaaray aniga iyo nin la yiraahdo Axmed Maxamed Yuusuf Barkuus ku magac dheer oo gudoomiyaha magaalada ah oo maqaayada dhexbartanka magaalada lagu soo weeraray oo xabad lagu riday oo ilaahay aniga iga fakiyay mid aniga lii waday nin rayada ee ku dhacday waxaan aad iyo aad uga xumahay ninkii Barkuus oo saaxiibkay ahaa inuu dhinto annagoona hospitaalkii gaarsiin dhowr jeerna baalkan kale la soo weeraro ilaahay naga badbaadiyay waana ogeedeen saa u ogeedeen anigana magaalada ku leeyahay dukaan ku leeyahay oo ganacsatada aan kamid ahay oo balad xaawa oo goobjoog oo deegaanka ku leh taasoo ay sii jirto aan ilaa haddadan aan baalkan kale cabsida aan nimankaas aan ka qabo haddadan aan ila hadlayo aan isleeyahay xataa amay wax hoos kugu soo dhigaano macnaha ni qarxiyaan markastana waxaa la weydiin jiray lacag baada oo dukaanka liigu imaan jiray handadaad baa lagu sameyn jiray telefoonka lagu soo wici jiray waxaa la dhihi jiray dukaanka markay rabaanba mashruucba ay soo dalacaanba ha meesha lagu weeraray maanta waa joogay meesha ay ku weerareen maanta aniga shaaxa ma ka cabay goob joog baa ma ka ahaaba ها أنا واحد يسوق عرينه وبالكان كله أكتيدي بباش يكون على إلهي بقى يقبض باديو أساسا كو عرر كان عن رئيس قديي با إلهي أمر كيس نريض أو ماشي كداش يدي تاجنا بيكون على أو تاجنا بيكون على إله الله waxaa ka dambeeyay al-shabaab oo baalkan kale indhaha xiran indhahena xirnay niman indhaha xiran bay ahaayeen dadka baalkan dadka tiinta taageera ma tiin gaalatiin dad xun baatiin bay nagu sheegayaan marka annaga qaabaan ula dhaqanno nimankan waa la'na magaaladu waa ka joogi la'na waa ka shaqaysan la'na waa ka horumar waa ka gaari la'na aniga waxay iga rabaan inaan taakuleeyo oo ganacsatada maadaama ahay oo balad xaawo ah inaan taakuleeyo aan ku taakuleeyo lacag oo baalkan kale ay shidaal intay ku shubtaan ee la dagaaltamaan baalkan kuwa diinta ka soo horjeedo ay dhahan bay ku tilmaamaan kuwa diinta ka soo horjeedo oo haddaadan lacagta bixin macnaha inaan ahay baalkan kale mujrim aniga qorshada waxay ii tahay ilaahay inuu wadankan si fudud iga bixiyo iyo meel nabad iyo amaan leh haddaan heli lahaa waa ku nasan waay waa seexan waay gurigayga laftigeed hadda ma seexdo maalin kastaba haba meel baan ku jiraa haba meel baan seexdaa waxaan isleeyahay ama gurigaaga lagu imaado ama xaggaa lagu imaado